wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamul goboleedka Hirshabelle ayaa kulan ay ku yeesheen deegaanka Cilmacaan ee gobolka Shabeellada Dhexe waxa ay markaasi kaga hadleen ama ay kaga arrinsanayeen sidii degmo loogu aqoonsan lahaa degmadaasi ama deegaankaasi Cilmacaan. warkaasna waxay noo soo diray Ibrahim Cali Nuur. kulankan oo ahaa mid looga areensanayay sidii degmo looga yeegleeli lahaa deegaanka Cilmacaan ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle, maamulka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan deegaanka Cilmacaan. bulshada reer Cilmacaan iyo tuulooyinka ku hareeraysan ayaa mas'uuliyiinta Hirshabelle ka dalbaday in degmo loo aqoonsado deegaankaasi Cilmacaan. degmadaan shansahayna xabad kuma hayno inaad maaragtay meeshaan degmo nooga samaysin Cilmacaan aan rabnaa. waxaa idinka codsanaynaa xildhibaanka, wasiir dowlaha, dib u heshiisiinta, ciidamada qalabka sida taliyaha maaragtay xeebaha. xuquuqda aan degmada Warshiq ku lahayn waan ka weynay. haddii aan nahay deegaanka odayaal baan u bixinay, dhalinyaro, maamulka degmada Warshiq in badan baan arrintaas kala hadalnay. wax weyn looga qaban waayeen. markii aan aragnay cadaalad darrada ka jirta degmada Warshiq, go'aan waxaan qaadanay in aan u yeerino madaxdeenni si ay arrinkaas wax ugu qabtaan. dhinaca kale gudoomiyaha degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe Qaasim Cali Nuur ayaa sheegay deegaanka Cilmacaan xilli hore inay ka gudubtay shuruudaha degmo lagu noqon karo. waxaan codsanaynaa kamid ah aniga dadka codsanayo si u codsadeen in dadkan maadaama ay dad aad u tiro badan yihiin degmadu ay codsadeen iyadoo codsi in Hirshabelle ka aqbasho ay dowlad goboleedka Hirshabelle ka aqbasho. waxaa yeelay degmo waxa ay ku naqato sharciyan waa ka gudbeen. wasiir dowlaha wasaaradda dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Sanay iyo xildhibaan Maxamuud Xuseen Gudbaaye oo ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle ayaa waxay sheegeen fariinta dadka reer Cilmacaan in ay u gudbin doonaan madaxda maamulka Hirshabelle. arrinkan noogu yeerteen waa aqbalnay waana idinka qaadnay. annagu waxaa tihiin ummad aan maamul lahayn, ummad aan matalaad lahayn, oo aan ka sukaynin xildhibaan iyo wasiir inay wacdaan. guddoomiyaasha degmooyinka Warshiqna waa fadhiyaan, dadka noogu matalaya Balcadna waa fadhiyaan. waxaana ii sheegteen labada dhinacba inay idin soo gaarin. ma beena ii sheegteen yaa inaana Balcadna xaquuq ka haysanina, Warshiqna xaquuq ka haysanina, 40 kiiloomitirna ka weyn tihiin. saas ma beena inaa baadi tihiin yaa insha Allah taala waxaan nagu og tihiin 4 bilood gudahood inaa baadida ka baxdin. waxaa idinku kallifay kacdoonka hadda yimiday dowladda Hirshabelle way iswarsan doontaa. waxaana u gudbi doonaa mesajka aad noo dhiibteen oo ah inaad u baahan tihiin degmo madax bannaan oo Cilmacaan la yidhaahdo. Ibrahim Cali Nuur, TV-ga Universal, caasimadda Hirshabelle, Jowhar. hay-adda daryeelka hooyada iyo dhallaanka ee marka lasoo gaabiya loo yaqaano Amkuba ayaa qalab caafimaad waxa ay gaarsiisay amaba guddoonsiisay maamulka isbitaalka Daynile ee